shaki kuma jirto in dadka qoraaga ah ee wax alifa ay sameeyaan baaritaano joogto ah si ay u helaan habka ugu wanaagsan ee ay ku heli karaan afkaar ama waxyaabo kale oo ay ku bidhaansadaan alifaadooda si ay u soo saaraan riwaayado, sheekooyin iyo buugaag si qoto dheer loo bisleeyay oo dadku ay ka helaan. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah astaamaha la yaabka leh ee ay leeyihiin dadka wax curiya kuwooda dunida ugu sarreeya. waxaana ka mid ah astaamahaasi: 1. in sariirta la isku kala bixiyo. qoraayaasha qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in marka ay sariirta isku kala bixiyaan ay fikrado muhiim ah ka helaan. waxaa ka mid ah qoraaga reer Mareykan Mark Twain, alifaaga riwaayadaha reer Ingiriis George Orwell, iyo aktarka iyo qoraaga Woody Allen. dhammaan waxaa lagu yaqaanaa in marka ay sariirta isku kala bixiyaan ay warqado badan buuxiyaan oo afkaartu ay ka soo burqato. astaanta labaad waa in istaaga wax lagu qoro oo wax lagu curiyo. si ka duwan qodobkii hore, in taagnida wax lagu qoro waa shay ay caan ku yihiin dad badan oo wax curiya ama qoraayaal badan oo hadda jira. Ernest Hemingway, Charles Dickens iyo gabadha qoraaga Ingiriiska ugu caansan ee Virginia Woolf. astaanta saddexaad ee ay leeyihiin dadka wax curiya, qora ama hal abuura waa in wax lagu qoro warqado yaryar oo gogo'an. Vladimir Nabokov, qoraagii Ruushka ee qoray riwaayadii Lolita ee caanka ahayd, howlihiisii oo dhan waxa uu ku alifay warqadahaasi yaryar. warqadahaasi qaarkood waxa ay ugu jireen babarkintiisa hoosteeda si uu wax ugu qorto marka ay fikrad ku soo dhalato. astaanta afraad ee ay leeyihiin dadkan wax curiya waa in hab madaxu uu hooseeyo mijuhuna ay kor jiraan wax lagu curiyo. qoraaga reer Mareykan ee caanka ah Dan Brown waxa uu madaxa iyo mijaha oo la kala rogo uu ka heli jiray afkaar cusub, ayada oo riwaayada la yiraahdo Definition D uu sidaasi ku alifay. astaanta shanaad ee ay leeyihiin waa derbiga oo laga soo horjeesto. gabadha qoraaga ah ee reer Mareykan ee la yiraahdo Francine Brose waxay u aragtaa in xalka ugu naajaxsan ee qoraagu uu ka heli karo fikrado ay tahay in derbiga laga soo horjeesto oo indhaha lagu qabto kadibna wax la curiyo. astaanta lixaadna waa in doodo la sameeyo kadibna doodahaasi laga dhex helo wax la qori karo oo mudan in dadka lala hortago. qoraaga dhanka masraxa Aaron Sorkin waraysiyo uu bixiyay waxa uu ku sheegay in sankiisii uu jabay mar uu sameynayay doodo dumar hortoodii lagu qabtay. xilli uu buuq ka dhashay ayaa dhibaatadaasi ay ka soo gaartay oo sankiisii uu ku jabay doodaasi kulalaatay darteed. taas waxay muujinaysaa in qoraagan iyo qoraayaal badan oo kale ay aaminsan yihiin in doodaha laga heli karo wax la curiyo oo la qoro. qodobka toddobaad waa in qaxwo badan la cabo. qoraaga reer Faranse ee la yiraahdo Honoré de Balzac ayaa qoraaladiisii muhiimka ahaa ee uu sameeyay maalintii waxa uu cabi jiray isku celcelis 50 koob oo qaxwo ah. sidaas oo kale filosofarkii reer Faranse iyo mufakkirkii Voltaire waxa uu maalintii cabi jiray 40 koob oo qaxwo ah si uu afkaartiisii muhiimka ah u diiwaan geliyo. bal hadda isweydii, haddii aad tahay qof wax curiya, qora ama hal abuura, astaan caankee ah ayaad leedahay marka aad wax curinaysid?